Assalaamu calaykum. Shimbiraha gorgorka iyo baqbaqaaqa caqli ahaan iyo dabeecad ahaanba aad ayay u kala duwan yihiin. Baqbaqaaqu aad ayuu u hadal badan yahay, laakiin aad uma duuli karo. Halka gorgorku uu hadal yar yahay, laakiin si aad u sarreysa uu u duuli karo, wuxuuna ku hamiyaa inuu cirka soo taabto. Hadiyadda baqbaqaaqu waa hadalka, hadiyadda gorgorkuna waa duulista. Gorgorku waa boqorka shimbiraha, waxaana maanta kula wadaagi doonaa 5 caado oo uu gorgorku leeyahay, dadkuna ay tahay inay wax ka bartaan. Waana caqliyadda ugu awoodda badan adduunka ee ku soo dhawaada mawduuceena maanta. Soo dhawaada mar kale. Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi. Weligaa ma aragtay gorgor la duulayo shimbiro kale? Maya. Gorgorka kaligiis ayuu duulaa ama gorgor kale ayuu la duulaa. Taasina waxaan ka baran karnaa 10 ah in aan ka fogaano dadka xun ee caqliga gaaban. Marka aad kaligaa tahay, waxaad fursad fiican u helaysaa inaad ogaato naftaada. Gorgorku waxa uu ugaartiisa ka arki karaa meel u jirta 5 kiiloomitir. Mar haddii uu arko bartilmaameedkiisana, si kasta oo ay u adag tahay waa uu ugaarsadaa, wuuna ka guulgaaraa yoolkiisa. Sidoo kale tani waxaan ka baran karnaa 10 weyn, taasoo ah aragtidaada iyo hadafkaaga ha caddaado, si kasta uu u adag yahay xaqiijintiisa. Gorgorku ma cuno xayawaanada baktiyay, waxa uuna mar walba ugaarsadaa xayawaano nool. Caqliyadan waxaan ka baran karnaa in wixii ina soo maray ee ina soo dhaafay ay dhinteen. Sidaa darteed, wax muhiimada ha siinin wax ku soo dhaafay oo aadan waxba ka bedeli karin, waqtina ha isaga lumin. Taa beddelkeeda, diiradda saar noloshaada cusub ee ku hor taalla. Shalay iska ilow, maantana diiradda saar. Ma garanaysaa sababta uu gorgorku sidaas u sameeyo? Sababtu waxay tahay in dhallaanka yar ee u dhalay gorgorka kuna dhex nool buulka aysan halkaasi ku dareemin raaxo, kadibna aysan ku qancin in meeshooda ay iska joogaan weligood. Yacni wuxuu rabaa inay dhaqso isaga soo baxaan buulkaas, noloshana wajahaan. Haddii ay meeshooda raaxo iyo amni ku dareemaan kuna qancaan, halkaas ayay weligood joogi doonaan. Laakiin hooyada gorgorka ma oggola inay taasi ku dhacdo dhallaankeeda. Bal u fiirso, gorgorku waa shimbir, haddana wuxuu og yahay in qofku uusan horumar ku samayn karin xayndaabka amniga comfort zone. Laakiin nasiib darro, innaga oo bini'aadam ah, inteena badan waan fahmi weynay arrintan. Mar walba oo aad ku qanacdo xayndaabkaaga amniga, waa mar walba oo aadan horumarin, isla markaana aad caajisoolo noqoto. Mawduucana xayndaabka amniga ama comfort zone, haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato, waxa aad uga hadlay walaalkii Cumar Inshaar janaalkiisa Ogaansho. Linkiga mawduucaas waxaan kuu soo dhigi doonaa description-ka. Marka gorgor laba uu la kulmo mid dhadig ah, isla markaana uu rabo inuu la saaxiibo, wuxuu tijaabiyaa awoodda iyo daacadnimadeeda. Muxuu sameeyaa marka uu tijaabinayo? Wuxuu soo qaataa shay wayna israacaan. Marka ay hawada sare tagaan, ayuu shaygii uu hayay soo tuuraa, markaasuu ku dhahaa, soo qabo shaygaas inta uusan dhulka gaarin. Iyaduna waa ay soo ciirsataa shaygii, waxayna ku dadaalaysaa inay qabato ka hor inta uusan dhulka gaarin. Haddii ay ka gudubto tijaabadaas, waxay ku helaysaa kalsoonida gorgorka labka ah, halkaas ayna ku saaxiibayaan. Casharka aan ka baran karno caqliyadan ayaa ah inaan iska tijaabino daacadnimada dadka marka aan rabno inaan la saaxiibno. Saaxiibayaal, mawduuceena maanta halkaas ayuu ku egyahay. Haddii aad wax ka faa'iiday muuqaalka, like saar, siina share gare. Mahadsanid. Inta aan mawduuceena xiga ku kulmi doono, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.